wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaaneedka Soomaalida Dr. Yuusuf Maxamed Cali ayaa dhagax dhigay cusbitaalka gobolka City oo laga dhisay magaalada Biki isla markaasina ay ku baxayso lacag dhan 230 milyan oo bir iyadoo bulshada ku dhaqan magaalada Biki ee nawaaxigeedu aad ugu riyaaqeen isla markaasina ay ugu mahad celiyeen xukuumadda dowlad deegaaneedka Soomaalida oo iyadu fursad u siisay in laga fuliyo cusbitaalkan magaalada Biki munaasabadii dhagax dhigga ay ka soo qayb galeen bulshada magaalada Biki iyo mas'uuliyiinta kala duwan ayaa waxa hadal ka soo jeediyay wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaaneedka Soomaalida Dr. Yuusuf Maxamed Cali wuxuuna in cusbitaalka laga fulinayo magaalada Biki uu kaalin fiican ka qaadan doono wax ka tarka baahidii adeega caafimaadka haysan jirtay bulshada gobolka City gaar ahaan magaalada Biki iyo nawaaxigeeda isla markaasina laga sugayo inay ka faa'iideystaan adeega caafimaadka ay ka heli doonaan iyo fursadaha shaqo uu abuuri karo inta uu socdo dhismuhu geesta kale gudoomiye ku-xigeenka degmada Afda Mudane Mawlid ayaa tilmaamay cusbitaalkan heer gobol ee laga fulinayo magaalada Biki oo fursad u ay heleen bulshada ku dhaqan magaalada Biki iyo nawaaxigeeda looga baahan yahay inay ka qaataan kaalintooda isla markaasina ay inay ka qaataan doorkooda dhismaha cusbitaalkan isla markaasina ay uga faa'iideystaan sida ugu habboon sidoo kale bulshada magaalada Biki ayaa aad ugu riyaaqay dhismaha cusbitaalkan maadaama ay kaga raysan doonaan dhibaatooyinkii baahida raasashada adeega caafimaadka ay u doonan jireen meelo dhaadheer iyo ku aad ugu mahad celiya xukuumadda dowlad deegaaneedka Soomaalida cusbitaalkan gobolka City oo laga fulinayo magaalada Biki ayaa waxa ku bixi doonta miisaaniyadan 230 milyan oo bir waxaana la filayaa inuu qayb ka qaadan doono baahidii adeega caafimaad ee haysan jirtay bulshada ku dhaqan magaalada Biki iyo nawaaxigeeda